waxaan kula wadaagayaa qisada Ronaldo bilowga noloshiisa ilaa maanta. Cristiano Ronaldo wuxuu ka soo jeedaa jasiirad yar oo lagu magacaabo Madeira. 7 jir markuu ahaa, aabihiis wuxuu shaqaale ka ahaa naadi yar oo jasiiradda ka tirsan oo lagu magacaabo Andorina. aabihiisa ayaa naadiga ka diiwaangeliyay sanadu markay ahayd 1992 ilaa wuxuu u ciyaaray 1995. 8 jir ayuu ahaa markii uu naadiga heshiis u saxiixay. Kadib naadi kale oo jasiirad ka tirsan oo lagu magacaabo National Madeira ayaa ku tiri anaga ayaa ku diiwaangelinayna akademiyadeena kugu tababarayna. muddo ayuu naadiga u ciyaarayay ilaa 12 sano jir markuu ahaa uu go'aansaday inuu jasiirad iskaga tago. asagoo u wareegay naadi ka tirsan naadiyada ugu magaca weyn dalka Portugal ee Sporting Lisbon. imtixaan jireed iyo mid xirfadeed kadib naadiga Sporting Lisbon ayuu ka mid noqday asagoo ah xilliga 12 jir laakiin xirfad aanan caadi ahayn lahaa. kadib naadiga waxay ku dartay akademiyada carruurta si uu mawhibadiisa u muujiyo. 14 jir markuu ahaa ayaa naadiga heshiis dhab ah ay la gashay kadib dadaal dheer uu la yimaaday. nasiib daro Ronaldo waxaa ku dhacay wax uusan filanaynin. Ronaldo waxaa laga helay xanuun wadnaha ku dhaca kaasoo sababi kara dhimasho haddaanan laga daaweyn. wiilkii yaraa ee kubadda cagta ku fiicnaa qof walba oo xirfadda kubaddiisa arka uu islahaa talo wiilkan yar markuu weynaado siduu noqon doonaa. inuu ku dhaco xanuunkan waxay ahayd wax la filan waa ah, laakiin naadiga ayaa qaliin laysar ku samaysay ilaa markii dambe uu ka caafimaaday. 16 jir ayuu ahaa markii ugu horeysay uu u ciyaaro kooxda koowaad ee Sporting Lisbon asagoo loo arkay ciyaaryahan xirfad leh oo kooxda u soo baxay. Agosto 2008 waxay ahayd maalin Ronaldo uu caalamka isbari doono ayagoo maalinta ciyaar saaxiibtin mala lahaa naadiga Man United oo xilliga ahaa mid ka mid ah naadiyada ugu quwadda weyn kooxaha Yurub. Ronaldo in uu naadi sida Man United oo kale la ciyaaro waxay u ahayd chance uu xirfadiisa ku soo bandhigi karo. asagoo u ciyaaray maalintaas sidiisa ugu fiicneyd xirfad kasta uu lahaana soo bandhigay. asagoona naadigiisa ka caawiyay inay ka badiyaan Man United ayagoo kaga badiyay 3-1. ciyaartoyda Man United ayaa markii ciyaartay dhamaatay isweydiiyay wiilkan yar ee 18 jirka sidan u ciyaaraya muxuu ahaa. kadib ciyaartoyda Man United ayaa tababaraha xilliga ee Man United Sir Alex Ferguson u sheegay inay la soo wareegaan ciyaaryahankan cajiibka ah ay adagtahay in dunida lagu arko asagoo kale. 18 jir xirfadda leh. 6 maalin kadib Man United ayaa ku dhawaaqday inay la soo wareegtay Cristiano Ronaldo ayagoona siiyay lambarka 7 ee naadiga oo ah number aanan cid walba xiran karin. lambarkaas markii u dambeysay uu xirnaa ciyaartoyga David Beckham oo ahaa xilliga ciyaartoy waaweynka ka ah Man United iyo weliba xulka England isagoona waqti aan xilliga ka fogeyn u wareegay naadiga Real Madrid. laakiin Ronaldo wuxuu jeclaa inuu xirto lambarka 28aad uu u xiran jiray naadiga Sporting Lisbon asagoo sidoo kale ogaa inuu lambarka 7aad xirto aysan ahayn wax fudud. laakiin waxay ku dhaheen may adaa xiranaya cidaan adiga ahayn ma xiranayso waan kugu kalsoonahay. Cristiano Ronaldo xilliga ma ogeyn inuu lambarkan ka mid noqon doono qayb ka mid ah magaciisa CR7 oo looga jeedo sida u taagan Cristiano, arta u taagan Ronaldo iyo 7 oo ah lambarka uu ku caanbaxay oo ilaa maanta uu xiran yahay. Ronaldo wuxuu ka mid noqday ciyaartoyda ugu xirfadda badneyd xilliga Man United. kadib 7 season uu ciyaaray wuxuu kula guuleystay wax walba uu rajaynayay inuu ku guuleysto. koobab badan sida Premier League, Champions League oo ah koobka ugu weyn qaaradda Yurub. waxa ugu muhiimsan shakhsiyan uu ku guuleystay ayaa waxay ahayd inuu ku guuleystay markiisii ugu horeysay kubadda dahabiga ee Ballon d'Or ee uu ku taamayay inuu maalin noloshiisa ka mid ah uu ku guuleysto iyo kabta dahabiga. kadib Ronaldo wuxuu dareemayay inaysan wax uga dhimnayn Man United. kadib Ronaldo wuxuu kooxdiisa u sheegay inuu koox kale u wareegayo. kooxdaasi waa Real Madrid oo xilliga ahayd koox magac iyo lacag loogu yimaado. Ronaldo wuxuu u wareegay Real Madrid lacag dhan 94 milyan oo euro asagoona ahaa xilliga ciyaaryahanka lacagta ugu badan abid lagula wareego. 6 July 2009 ayaa Ronaldo lagu soo bandhigay Stadium Bernabeu. halkaan wuxuu ka dhigay rikoor kale oo wuxuu noqday bandhigid ciyaartoy kii ugu badnaa ee abid laga soo qayb galo. iyadoo bandhiga Ronaldo lagu soo bandhigay ay ka soo qayb galeen taageero gaaraya 80,000 oo qof. xilliga waxay ahayd bandhig lala yaabo intaasoo taageer inay ka soo qayb galaan ciyaartoy la soo bandhigay. Ronaldo Real wuxuu u ciyaaray 438 ciyaar wuxuuna u dhaliyay 450 gool iyo 120 assist. Ronaldo Real wuxuu kula guuleystay wax walba oo niyadaada ku soo dhacay. koobab badan ay ka mid yihiin Champions League 4 mar ah, horyaalka Isbaanishka,
iyo 4 jeer uu ku guuleystay Ballon d'Or intuu Real joogay iyo koob kaloo badan. intaa kadib Ronaldo wuxuu u wareegay Juventus kadib Man United uu ku soo laabtay asagoo waqti badan la qaadan ayuu ka tagay oo uu u wareegay koox Sacuudi ka dhisan ee lagu magacaabo Al Nassr oo uu mishaar ahaan sanadkii ugu qaadanayo 200 oo milyan waana mishaarka ugu badan ciyaartoy uu maanta qaato. Ronaldo wuxuu si joogto ah kubadda cagta u ciyaarayaa 23 season 2003 ilaa maanta oo lagu jiro 2024 waana ciyaartoy maalintii uu soo baxay ilaa maanta kaamirada caalamka aanan ka jeesan. laba shay ayaa Ronaldo ka dhigtay inuu noloshiisa bedelo. waa hard work oo ah in aad shaqo adag la timaado shay kasta oo aad qabanaysana aad u qabato sida ugu wanaagsan, iyo consistency oo ah in aad si joogto ah u qabato shayga aad jeceshahay inaad nolosha mustaqbalka aad horumar ka gaarto maalin walba iyo saacad kastan aad waqti ku bixiso. maalmo ka hor Ronaldo wuxuu furtay YouTube channel asagoona 3 maalin ku gaaray in ka badan 40 milyan oo subscribe. qisada Ronaldo intan ayaan kusoo koobayaa. fadlan haddaa ilaa xaggan ila soo gaartay muuqaalka like ii saar, subscribe igu caawi, mahadsanid. Cristiano Ronaldo ودري رونالدو ودري رونالدو ودري رونالدو الله نكان كبير